بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وزير فلسن Governor أحمد علي مختار وGovernor هيجا وجيرة walaalkay qaaliga oo saaxiibkay waliba isku kan hanto xildhibaan Shuriye ama Cabdi Umar Shuriye balbala gaarisa ka soo jeedo murashaxa rudi waa isku kan hantaa laakiin meel baan ku kala gudubnaay taasna waa kaftan gooniya murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Garate sagal saaxiibkayga kale oo isagana magaciisa yaraada laakiin wajigu yidubnaay iyo dhamaan marti sharafta iyo maamooyinka waliba maamooyinka si gooni aan u salaamayo Faadimo Xirsi ana aad u salaamayo iyadana oo culus iyo la badan hayso odayaasha dhalinyarada gabdhaha aad baan idin salaamaya dhamaantiin walaalkay Nuur Qaaliya arintan daadihinayo iyadana asagana waxaan leeyahay aad baad ma santahay ma si badanayo waxaan rabaa laakiin inaan hal iyo laba iraahdo filsan ay soo dhawow waxaan rabay walaalkay Cabdi Umar Shuriye inuu macnaha filsan sheego bal laakiin uu garan waayay ana u sheegaya aniga laba shay Soomaaliga uu ka weeyay laakiin aniga laba shay baan sheegaya filsan laba nu macneeyay inta kale idinku macnaysta ficilsan oo ficilsan ay ku dhaqaaqdo waa ficilsan filsan kafila sami haddaba inta haddaan aniga u macneeyay marka inta kalena Cabdi Umar Shuriye anu daayay inuu isaga raacsada hadhowe waan daanaya ama Ahmed Mukhtar Weerar gabana ayaga si macnayaan inta kalena raacsadaan marka taa waa kaftan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan oo leeyahay filsanay soo dhawow wasiir gabadha qaaliga runtii arin aan la xusin baa jirta wasiir filsan waxa laga ictiraafay boqolka qof oo dumara oo ugu hawl qabad badnaa ama ugu adka xaq siyaasadeed ama u muuqday ee Afrika ayaa laga xusay biladaas way qaadatay tuu xildhibaan Omar Siyana ma ee wadamada Afrika waa 350 wadan baan u maleynaya ku dhawaad meelaha ayaa laga xusay marka boqolka way soo gashay jaraa'idiyada ku aragteen internetyada ku aragteen baan u maleynayaa wixii sida loogu ictiraafay hawlgalka inta la eg ayaa anagana aanu ku leenahay hambalyo ashadawayta lagu magacaabay taayada hambalyo leenahay waxa kale oo raacinaya dhiiranaan iyo ka dhiidhi ayay u istaagtay inay runtii xilkeeda uga talaabsato iyadoo qadarinayso iyadoo qiimeynayso iyadoo u qorsheynayso mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Itoobiya taa haday ku talaabsatay waxay naga mudan tahay marka xusitaan khaasa gooniya oo idinka inta fadhidaan soo gingimteen munaasabadan idinka soo gingimay soo daadihiyay soo na dhaweeyay annagana garab baan dhinac uga taaganahay inaan u ahaano dadkii ay ku tirsan lahayd ay ku xisaabtami lahayd haddaan siyaasi Kenyan nahay waxaan idin sheegaynaa wadankan Kenya innaga wada leh xuduuday ku taagan tahay wadanka Kenya 8 xubnood weeye ama 8 tiir weeye tiirka ugu ballaaran oo ugu labaad inta la yiraahdo ee dhulka baaxadiisa innaga leh waa NFD dhamaan hadii la isu raaciyana hadii dhamaan la isu raaciyo NFD waxaanu nahay gobol
yoolka ugu koowaad ama tiirka ugu koowaad ee wadankan ayaa la yiraahdaa Marsabit laga soo bilaabo Mooyaale lagu xijiyo Sielow lagu xijiyo Mandheera lagu xijiyo Wajeer lagu xijiyo Garissa lagu xijiyo ilaa Tana River Hola lagu xijiyo aqoonta inaadan idinka u arkaynin baa laga yaabaa taa haday tahay marka tusaale waxa idina tiirkii u koowaad wadanka hadaanu sida ku nahay waa inaan u noqonnaa shacabka ugu cudud adag inaanu ka noqonnaa halka waxa haday sida noqotayna xuduud aan la leenahay Ethiopia iyo Soomaaliya haday sida noqotayna dadka la soo dhowray la soo eegayo si dhaxgali maayo laakiin waad garan kartaan marka iyada inta tilmaani igu filan Suldabale waa hadal haddana waa si gooniya Suldabalaha waan ka diidan taa waxa ii dheer oo ugu dambaysiinaya waxa fursad qaali ah ee maanta munaasabad muhiim ah inaan ka qayb galo soo dhaweynta marti sharafta walaashay wasiir Filsan wanaad u jeclahay runtii oo inaadeerteena oo tolkeena wasiiradeena yahay yaan doonayaa inaan halkan aad iyo aad ugu soo dhaweeyo inta horte anigoo mathalaya magacayga iyo magaciinaba ayaanu leeyahay saayada waxa noo yimid oo nala jooga isagana walaalkeen Ahmed Ali Mukhtar gavana Ahmed Ali Mukhtar oo rabo inaan hadda soo dhaweeyo microphone-ka oo waxoogaa idin la hadlo isagana ka soo qayb galay soo dhaweynta walaasheen Filsan fadlan gavana Ahmed Ali Mukhtar oo saxabaya una istaaga مع السلامة بسم الله الحمد لله وبين نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال هذا بدانتي عطي اسمها لكن رايي انه لمد انا لا عطي marka marka koowaad aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa dadkii xafladani lagu soo dhaweynaya walaasheena soo qaybqaabiyay waxaanan leeyahay walaasheena wasiirada Filsan Abdullahi soo dhawow wadankaadi ku soo dhawow dadkaadi ku soo dhawow Kenya lagama laha walaalaha ayaa degan sidoo sheegay MP-geena NFD waa gobol aad iyo aad u ballaaran size ahaan ninkaan garanaynin waxay u dhigantaa taqriiban athar thuluth ama saddex kameel meel wadanka Kenya la dhaho dhammaan Wajeer goob county-ga Wajeer bas ah waxa waaye 56,000 square kilometer Kenya dhanna waa 581,000 kilometer marka Wajeer bas ah ayaa boqolkiiba 10 ka land mass Kenya markii lagu daro Mandheera iyo Garissa iyo Marsabit iyo Isiolo actually waa more than a third wadanka Kenya loo dhawaada marka wadankani maadaama walaalaha ay degan yihiin gobol maaragtay saddex kameel meel ay kala yihiin madax ay ka yihiin marti kumadi laakiin maadaama aad inooga imaatay meesha laga wadayo waxaan kuleenahay haddana waa laga soo horeeyay soo dhawow Wajeer county waxaan leenahay xuduud both Soomaaliya iyo Ethiopia xuduud aad iyo aad u dheer oo taqriiban 8 kilomitir aan leenahay Soomaaliya Ethiopia-na waxaan kala leenahay meel guraar dhinaca north-ka waxaan ku dhownahay ilaa Mooyaale marka gobolkeena ogaadeenayana waxaan leenahay xuduud
soo degaysaa adigoo waddan kale aanan marin marka waa waddankaani aad iyo aadna waxaan u salaamayaa dhammaan dadka meesha joogo magacii maamuuska dhammaan ay ku joogaan waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa mudanayaasha MP-geena Balambala iyo Professor Omar Wajia South oo ayagana ka soo qaybgalay xafladani iyo walaalkeena asigana u sharxan madaxweynenimada Soomaaliya gobolkeena hadda sida ogaadeenaya ama gobolaha ka jirtaba abaar iyo aad u baaxad weyn ayaa ka jirto marka dadkeenana ha loo duceeyo yaana la halmaamin madax way leeyihiin laakiin dowlad mar walbo wixii la rabo dhanba ma wada qaban karto soma marka naftiina waxaa la rabaa dadkii idinka dambeeyey inaanan la halmaamin loona duceeyo insha allah marka hadda waxaan rabaa fursadani in walaasheenna Filson oo ahayd wasiiradda ka ahayd federaalka waddanka Ethiopia sababaha iyaduna ay garanayso ooga tagtay shaqadii maantana la joogto in aan dhammaan wada istaagno soo dhaweyno ayna la hadasho marka wasiirada Filson Abdullahi soo dhawo wadmaasantihiin Faristo, please. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan rabaa inaan salaam ku bilaabo marti sharafka Governor Ahmed Mukhtar, Governor Wajeer, xildhibaan musharax Somali Federalka Hassan oo President u sharaxan walaalkay Hassan ama Karate ku magac dheer Honorable Members of Parliament labada xildhibaan ee runtii garabkayga istaagay sida ballaadhan ii soo dhaweeyay Honorable Dr. Omar iyo Honorable Abdi Umar inaad si kal iyo laaba igu mahadnaqdaan waan doonayaa marti sharafta culamaa diinka uqaasha odayaasha dhalinyarada haweenka qaaliga hooyooyinka saxaafadda dhammaan mudanayaal iyo marweyn salaanta islaamka mar labaad inuu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxaan rabaa halkan inaan tacsi tiraanyada ka diro maanta waxaa la aasay awowgay ama adeerkay ama dhammaan ummadda Soomaaliyeed qof shakhsi qaali ku ahaa taariikhda Soomaalidana meel weyn ka galay mug weyn ka galay waxaan rabaa dhammaantiin inaad ila tacsiyeysaan ood iigu dirtaan tacsi familiga uu ka geeriyooday marxuumka awowo Allahu naxariistee Mahdi Ayub Guuleed ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo reerkiisana samiriyo iimaan ayaan leenahay waxaan kaloon rabaa halkan inaan duco uga soo jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee abaartu dhinac kasta ay runtii saamaysay abaarihii kale marka loo eego abaarta ugu xun ama worst humanitarian crisis in decades markii ugu horeysay ka dhacayso ay tahay ummadaasna siduu governorku sheegay aynu duco la garab istaagno dhinac kasta inuu Soomaalida ah dhinac kasta oo abaartaasi gaadhayso inaynu duco la garab istaagno inuu Ilaahay nimcadiisa iyo roobkiisa u diiyo ayaan iyagana inaad ducadaas ila ducaysaan baan rabaa duca iyo salaan kadib waxaan rabaa kulley waa soo dhaweyno wax badan ma dhihi doono laakiin wax yar inaan taataabto wax badan waa la soo yidhi aad baad ii
شرفتين إلهي هين شرفه أدبدي قرب استاكتين وحادي تستين يعني دي رجلين أما سودوين كل إيالابا waxay ii noqonaysaa mid aan saad sheegteen aanan la seexanin balse aan u halganku noocyo badan yahay aan dhaxda u xidho isbeddelka iman doonana qayb libaax ka qaata haddii alla yidhaahdo wax badan dadkeena deegaanka Soomaalidu way soo mareen dhibaatooyin badan waynu soo marnay waynu soo aragnay maanta taaban maayo sababahan uga tagay xilka idinku meelo badan ba taabanayseen ku noqon maayo laakiin waxaan rabaa inaan ka yar hadlo dhibka jira iyo sababaha aynu uga bixin karno gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida degan inagoo kaashanayna siyaasadda bisil ee ummadda Kenya ee Soomaalida halka degan inagu garab istaagi doonto sidoo Dr. Omar sheegay aynu isku kaashan doono iskuna garab istaagi doono haddii alla idmo taas oo u baahan run ahaantii mid siyaasadii hore ka duwan ama siyaasadaynu maanta taaganahay mid ka duwan inaynu ciyaari karno marxaladda Itoobiya ku jirto waanu aragnaa marxaladday ku soo jirtay deegaankeenu khaasatan waynu arkaynay ma ka baxnay ma ku jirnaa ma ka darnay waa su'aalina wada taala laakiin hal waxaan rabaa inaan dhaho siyaasadda Itoobiya waan ka gaaray salaanka ama jaranjarada meesha ugu sareysa alxamdulillah waanan dhudhubadeeda taabtay waxay tahay waxa la inaga aaminsan yahay Soomaali ahaan sida laynoo arko iyadoo isaas tahay laakiin ma u fadhiisanin ma i qabjabinin ma i niyad jabinin sida la sheegay anigoon taageero badan runtii markaas ka haysanin meelo badan balse aan rabay inaan tuso Soomaalidu inay la iman karaan xirfad ama siyaasad ka duwan tii lagu yaqaanay unfortunately ima hirgelin sababtoo ah xaaladda dalka isbedelay marxaladda dalku way isbedeshay waxyaalo badan oo igu kalifayo duruufay saarayay oo ka tahay danta Soomaalida iyo qadiyadda Soomaaliyeed ayaa igu kalifay inaan xilkaygii dib uga istaago dadkaygii ku soo noqdo ogaansho ama wacyigelin lana qaato waxyaalada laynaga aaminsan yahay waxyaalada aynu samayn karno saanani sheegay dhaxdan ugu jiray waan arkay taasi aqoon bay ii noqotay dadkayga ku soo noqon karo oo dhihi karo maanta tan laynooga fadhiyaa taasoo ah inaynu gamcaha isqabsanno midnimo isgarab istaagno dad badan oo ina kala qaadqaadi way jiraan siyaasadooda darteed amaba siyaasiyiin badan oo u arka siyaasadoodu inay ku jirto in dadka la kala sarrifo way jiraan taas inkastoo ayaan taro aan u arko khaasatan una hirgeli doonin kala saarsaarka iyo kala sarrifka ummadda Soomaaliyeed ee halganka badan ee dhibka badan soo maray maanta in qabiil iyo qolo loo kala saaro oo arko mid qadiyadeed intii loo istaago danta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka Soomaaliyeed ee soo koraya dhaxalkii loo reebi lahaa mid nooceeyo noqonaya kaanaynu ka wada tashanno ururo badan oo asxaabaa jirta kulley miidiyaha way naga daawanayaan iyagana waxaan rabaa inaan u fidiyo inay siyaasadda qalafsan laga soo tago waa laga midaysan yahay danta Soomaaliyeed waxa lagu kala duwan yahay laakiin sidii loo maareyn lahaa danta Soomaaliyeed marka inaynu fahanno inaynu danta u taaganahay maareynteediina aynay naga gelin qola iyo qabiil iyo kala qaybis balse ay noqoto mid qadiyadda Soomaalida u taagan kulley waxa la Soomaalidu ku mahmahdaa markasta hooyada aroosto
ama odayga cusub waa adeer kulba odayga cusub ee aroosta waa adeerka so inaynu sugno adeerkii kolbaynu inoo yimaado inoo yeedhiyo ama maqaar saar la inoo keeno dee anigu ayaan dhaqano inaynu ka gudubno inaynu gaadhno siyaasad bisil oo aynu inagu go'aansan karno siyaasigeenna aynu go'aansan karno qofka shakhsiga aynu rabno inuu ina matalayo meel kastaba ha ahaatee oo aynu go'aamin karnana qofkaas maalintaynu la xisaabtamayno iyo inaynu xilka ka qaadi karno xor u nahay taas baa la yidhaahdaa maskaxda qof ku boqolkiiba boqol xor ku ka yahay marka inaynu siyaasadda bisil gaari karno aynana ka aqbalayn gorgortana gelayn mar dambe Ethiopia inay maqaar saar dambe noo keenayso taasna midaynu qori kaga baxayna maaha waan soo aragnay waan soo halgelnay dadkeennii way ku dhammaadeen maanta waxaa loo baahan yahay siyaasad ka duwan siyaasadii xirfadda siyaasadda maxaynu la imanaynaa marka kursiga siyaasadeed la soo fadhiisanayo ummadda Soomaaliyeed maxay la soo fadhiisanaysaa ma inagoo kala qaybsan baynu imanaynaa Ethiopia wayna wada socotaa wayna kala socotaa laakiin inagu saynu soconnaa xagaynu soconnaa ranaynu ka fikirno ummadda Soomaaliyeed sidaynu u midayn lahayd maslaxadda Soomaaliyeed sidaynu mashraxa ama goobta siyaasadeed u keeni lahayn midaynta ummadda Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka Soomaalidana aynu uga shaqayn lahayn iyo guud ahaanba Soomaalida dhammaan inaguna aynu noqon lahayn hormuud bari kamaalin Ethiopia anagu dhulka kama tegayno dhulkeennii baa ku yaala ma burburaysano ha burburta ma dhaheeno danteena ma hawada joogta haddaan leenahayna waa inaanu anagu hormuud u noqono siyaasadii shalay way dhammaatay mana soo noqon doonto siyaasadda jirta laakiin booskaynu ka ciyaaraynay dhammaanteen bay inoo wada taallaa siyaasiyiinta Soomaalida deegaanka iyo dawlad deegaanka ummadda ka soo jeeday Soomaaliyeed dhammaantood waa mid u taalla marka taas inaynu furno albaabadeedii kuraasteedii la wada imanayay masraxa siyaasadeed la ballaariyo qolana la riixin qabiilna lagu riixin cidna la aqabayn ama uqdad la gelin balse masraxadda siyaasadda mid ballaaran oo ummadda wada qaban karto laga dhigo wada jirbe gamcuhu wax ku qabsadaan aynu isku dayno inaynu isku duubnaano xaalad culus iyo marxalad culus bay Ethiopia gashay taasna sidaynu uga gudbi lahayn maanta kulligeen dhammaanteen siyaasiyiinteena aynu fadhiisino taasna waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono insha Allah qaybta ugu weyn ka qaadan doono iskuna keeni doono asxaabta kala duwan ee siyaasadeed markay imato dialogue ama wada tashiga Ethiopia dawlad deegaanku iyagoo gacmaha haystaan kala duwan balse ka midaysan ummadda danteeda ay masraxa siyaasadeed yimaadaan waan ka shaqayn doonaa waxaan soo gudbinayaa dhammaan Soomaalida deegaanka ka soo jeeda iyo Soomaalida ka soo jeeda markaan leeyahay qof kasta awow meel uu kaga soo jeeda marka waa inaynu qabsanaa dhulku meeshuu xuduntu taal waa laga maarmaan inaynu dhulkana leenahay kaana leenahay labadaba aynaan iloobin waana laga maarmaan inaynu isku xidhnaano siyaasadaheena mid kasta meeshuu joogo uu ka wadayo lagu taageero lagu garab istaago idinkuna ka shacab ahaan garab istaagtaan dadkiina muujinaya firfircooni siyaasad duwan keenaya loona arko siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee soo baxaysa inay haystaan shacab ka dambeeya oo ay matalayaan ka ballantan aan qaadayo insha Allah madaxda niga dambaysa ay kamid yihiin siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed ee deegaanka joogta ay hormuud u yihiin in la isku keeno loo furo siyaasad wada hadala wada tashiya insha Allah inta Nairobi joogana qorshooyinkayga taas kamida meelahan ka gaadhnayna saxaafadda waan la socodsiin doonaa dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida laabta kalgacal kale ugu soo dhaweyseen haweenka sida quruxda badan u labisaneen arko hooyooyinkay walaalahay eedooyinkay dhammaantiin habaryarahay idinka
idinkaan salaanta idigu badinayaa idinkaan ini garab istaagayaa sadii garab istaagteen walaalahayna sidoo kale aad baad u mahadsantihiin madaxda ay sharaftay ilaahayna sharfabana leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu